gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD oo ka yimid furmaha dagaalka ee ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta gaaray degmada Afgooye ee isla gobolkaasi. Gudoomiyaha ayaa xoolo nool iyo raashin waxa uu ku wareejiyay ururka 31aad guutada koowaad qaybta 12 Abriil ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in lagu dhiirigelinayo ciidamada dawladda howsha adag ee ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. ugu horeen gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose Aweys Cabdullaahi Bulalow ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose uga mahadceliyay dadaalka uu ku bixinayo dhiirigelinta ciidamada xoogga dalka. aan soo dhaweynayna geelan iyo wixii lagu cuni lahaa oo gudoomiyaha uu gartay in ciidamada uu lagu dhiirigeliyo mar walba sida gudoomiyaha u sheegay waaye maalin walba week walba inaan bixino arigi bil walbana geeli inaan bixino waa soo dhaweynayna. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamuud Mire oo isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in deeqdan maanta lagu wareejiyay ururka 31aad guutada koowaad qaybta 12aad ay tahay dhiirigelin lagu dhiirigelinayo ciidamada xoogga dalka. maamul ahaan maaragtay qaalinta geela iyo qadadan aad ugu tala gashay inaad balmaanta ku soo salaanto ciidamada maaragtay qalabka sida oo meesha jooga xeradan degan aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa. marka waxa weeye hadal badan meesha kuma jiro inaad ku wareejiso maaragtay wixii aad ugu tala gashay. qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee ka gudoomiyaha deeqdii isugu jirtay xoolaha nool iyo raashinka ayaa gudoomiyaha waxa ay ku amaaneen sida uu u dhiirigelinayo ciidamada dawladda isla markaana u garab taagan yahay sida ay maaragtay ay deeqdan ay ku keeneen ururkan iyo guutada ay sida sharafta badan leh ay noogu keeneen dhiirigelinta leh oo maaragtay wanaag badan leh waa ugu mahadnaqay. amaanay qaabkii laga rabay ciidanimo inaan maaragtay dishibliinahan iyo amni ahaan baan uga soo baxay maahan waa si laba jibaareen waara maasanta waa ka gudooni ma sha Allah Allahu akbar. halgankii uu ciidamada la bilaabo ilaa bara oo ku tago timay isaga xira waxaan dhijirna gudoomiye timaha ma xirti meel bay la bara oo timay ku xira annaguna inta waa isla soconay oo geed iyo waxaan isla seexanaynay muxuu gudoomiyaha gobolku nin isla weyn maahan xiriyaha ciidanku wax ka seexda xiriyuhu nala seexan jiray geedaha hoostooda markaan joogno oo aan difaacyada iyo duurka marka ku jirno nala joogi jiray. waxaan leenahay waa gobolkan nin u soo halgamay waqti badan ku soo bixiyay runtii xaq badan ku leh way. aan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka soo dhaweynta oo ciidanka soo dhaweynayo oo ugu deeqayo wixii ama raashin ha ahaato ama ha ahaato xoolo noolba aad iyo aad ugu mahadsan yahay. waana waxa looga bartay ciidan kasta oo yimaada ama ciidamada soo dhaweynta dhiirigelin bay u tahay waxay u tahay moraal bay u tahay in dadkii la shaqeynayaan bay dareemayaan. waxaan rabaa gudoomiye aad iyo aad baan arrintaas kaaga mahadcelinaynaa. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD oo ugu dambeyn hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in mar walba ay u taagan yahay dhiirigelinta ciidamada dawladda isla markaana waxa uu soo hadal qaaday dagaal maalinimadii shalay ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolkaasi. waxaan u nimid maanta inaan la feesteyno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida degmada Afgooye haddaanu nahay maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan go'aan ku gaarinay inaan la qadayno ciidankeena wax weyn maaha neefkaas geela aan keenay hasha iyo bariiskaas iyo cabitaanka waxaas oo dhan waxaan ugu talagalnay ciidanka dhiirigelin weyn macnaha in ciidankii annagana waxba kala ahayn sida dareeskooda aan u soo gashtay in maxaan ku ayagana inay maamul u yihiin. Cumar Buula Tusma TV magaalada Muqdisho.